daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudano meel kastoo aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada stuudiyaha Safi Films ee magaalada tan Qaahira waxa caawa marti inoogu ah stuudiyaha oo aanu wareysi la yeelan doonaa fanaanka Soomaaliyeed ee Maxamuud Cali oo aad u taqaanaan badankiinba Maxamuud Amoore kana mid ah Soomaalida dalka Ingiriiska ama fanaaniinta ka yimid dalkaas Ingiriiska ee ku sugan magaalada tan Qaahira wuxuuna Amoore halkan u yimid inuu maaragtay ka sameeyo bandhig faneed oo uu ka tumay maalintii ama habeenkii sanadkii cusbaa ee New Year 2011 hadaba Amoore oo aan la yeelan doono wareysi dhinacyo badan taabanaya ayaa halkan waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo microphone-ka ee ku soo dhawow Maxamuud Safi Studio iyo magaalada Qaahira gabiyan aad ba u mahadsan tahay Cabdallah adiga iyo bahda saxaafadda ee ku nool dalka Masar magaalada Qaahira محمود markuu horeyso waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo sidee baad u aragtay Qaahira maxaad si kala kulantay sidee se lagu soo dhaweeyay wadankan oo aad markii ugu horeysay timid wallahi nihow mahad aan la koobi karin ayaan waxaan u hayaa fanaaniinta ku dhaqan dalkan shacabka saxaafadda oo ugu horeeyo Safi Films soo dhaweyn aan filanin baan kala kulmay aad baan ugu mahadsan waxaad ka tuntay magaalada Qaahira sidee baad u aragtay dadka Qaahira iyo habeenkii aad ka tumeysay wadankan Masar runtii dad aad u jecel fanka dad garanaya fanaanka qiimihiisa dad isku duuban oo isjecel dad ay ku weyn tahay Soomaalinimadu aad baan ula dhacay aad baan u jecelahay waan rajaynayaa inaan barnaamij kan la mid ah ku sameyn doono insha Allah mustaqbalka mahad badan baan u hayaa insha Allah Amoore waxaan jeclahay inaan markaan u wacdo aan ka wareysto waxyaabo kale oo kamid tahay goortii aad fanka ku soo biirtay iyo xilligii aad soo gashay fanka maadaama aad tahay fanaan cusub markaas si dardar ah ku socdo aad ba u mahadsan tahay waa su'aal muhiim ah fanka markii ugu horeysay oo aan hees qaado waxay ahayd muddo hadda laga joogo marka da'da loo fiiriyo aad waqti fog u ah arday baan ahaa dhigta dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Madar ee ku yaala xaafadda Hodan waxaan ka soo galay fanka ubaxa degmada Hodan waxaan ahaa arday jira da'diisa u dhaxayso 10 ilaa 12 sano markii burburku dhacay kadib waxaan soo aaday dalka Imaaraadka Carabta oo aan muddo ku noolaa ma helin marka chance aan fankayga dibadda ugu soo dhigo markii aan u soo baxay dalka Ingiriiska oo ahayd 2003 aad waxa igu gacan qabtay fanka oo aan abaalkiisa ilaawi karin marnaba fanaan weyn ee Soomaaliyeed oo la yiraahdo magaciisa Aways Khamiis Cabdallah kadibna waxaan gacan ka helay fanaanada weyn iyadana Saad Cali Barsame oo labaduba fankayga maanta meesha uu maray mas'uulka ah markii aan maaragtay aan soo gudagala dhawaan markii aad fanka soo gashay waxaan daawaday ama aan goobjoog ahaa bandhigii aad ku qabatay magaalada tan Qaahira oo ay dadku aad ugu heleen waxa aad dadku u soo jiitay oo ay markaas wada kaceen markii aad qaadaysay heestii maama oo kamid ah heesaha aad caan ku tahay runtii heesta maama wax ma noogu sheegi kartaa Maxamuud heesta maama waa hees kamid ah heesaha aan qaado waxaan dhihi karaa waa heesahayga aan jecelahay mid kamid ah heestan miraheeda waxa iska leh abwaan weyn oo aan mirihiisa jecelahay oo ixtiraam u hayo oo la yiraahdo Maxamed Sugaal oo igula nool dalka Ingiriiska laxankeeda waxa iska leh Cali Umar oo isagana abwaan aan laxmadiisa jecelahay ah waxa ila qaaday gabar la yiraahdo Samsam Cali Rooble oo ah fanaanad reer Djibouti ah muusigeeda waxa tumay Maxamed Karaama oo aad garanaysan musicianka maanta aan haysanaa waxaan ku duubay magaalada London waxay heestu soo baxday sanadkiina soo dhaafay New Yearkii maalintii loo dabaaldegay stage ugu horeeyay ka qaadno wuxuu ahaa xafladii sanad guuradii loo dabaaldegay sanadka cusub xalay markii aan ka qaaday xafladana heestu way sanad jirsatay runtii waxaan kugu soo dhacday heestii oo wali dadkii xiisaheeda aan ka dhicin oo sidii loo jecel yahay heestii
aad baan ugu faraxsanahay, aad baan ugu hambalyeynaya fanaanka abwaanka i siiyey, kan laxamay, kan tumay, gabadha ila qaaday. maxamuud amoore ma jiraan hees maaragtay dhowaan aad soo watid ama album ama heese kale cusub oo markaasi maaragtay ugu talagashay taageerayaashaada inay dhowaan ku raaxaystaan? heesaha aan soo wadaa waa fara badan yihiin. waxaa ka mid ah heeso jacayl ah oo talantaale ah. heesta aan hadda jecelahay markii aan lana ku laabto oo ugu horeyn doonta insha allah waxaa ila qaadi doonta fanaanad la yidhaahda ikraan caraale. aniga soo wada wadna heesta. heeso kale oo badan oo soo wadaan way jiraan, kuwo keli keli ah iyo kuwo aan talantaale noqon doonaba. dadka ku yaqaan amoore markaan taas ka tago waxaa jira inay maaragtay kaa daawadeen ama aad ka dhex muuqatay heestii caanka ahayd ee gubaabada ahayd ee lagu magacaabay heesta qaylo dhaan oo maaragtay soomaaliya inteeda badan saameyn ku yeelatay ama dadka soomaalida meel kasta joogaan. heestaasi kadib ma ka dhex muuqatay ama kale ama ma samaysay ama ma heestay ama ma ka dhex muuqatay ama ku lug yeelatay heeso wacyigelin ah oo la mid ah heesta qaylo dhaan oo aad ku jirtay? horta hadda su-aashaas jawaabteedu waa muhiim inay weydiisid su-aashaas. heesta qaylo dhaan hees aada u muhiim ah, waqtigii la qaaday iyo macnihii loo qaadayba qof kasta oo damiir lagu dareemi karaa. heestan waxaa la xamay cabdishire jaamac jookle, miraheedana waxaa iska leh isla walaalkii cabdishire isaguna. fanaaniinta qaadayna wada garanaysaan, qiiray ku timi heestu, dhibaato aada u weyn oo qofkii damiirla u dareemi karo ayay ku timid. qof kasta oo habeenkii heesta stageka saarnaa oo qaadayna qof caadi ahaa ma jirin. marka heestaasa waxay u dhigantaaba 1000 heesood. runtii ilaa hadda waa la socnaa suuqa kama ay bixino, qof walba wuu dhageystaa markii khaasatan la arko waxyaabaha ka socda dalka Soomaaliya. mudane amoore waxaan kaloo jeclahay inaan ku weydiiyo, waxaad ku jirtaa sidaad noo sheegtay tour ama bandhig faneedyo aad ku wareegeyso caalamka intiisa, qaaradaha kala duwan ee caalamka. dhowaan waxaad ka timid magaalada Addis Ababa, halkee haatana waxaad ka tuntay oo si weyn taageerayaashaada jooga Qaahira iyo kuwa fanka jecelba ay kugu reeqeen, halkee kusii fooleedahay ama aad ku wajahan tahay oo aad jeceshahay inaad markaan ka tuntid? safarkayga wuxuu kasoo bilowday magaalada London dalka Ingiriiska. waxaan tegay Addis Ababa oo bishii lasoo dhaafay 7deedii aan ka tumay. 2 xafladood oo ka dambeysay oo kalena way jireen oo taa weyn ka yaryar, oo tii ugu dambeysay habeenkan soo baxay la sameeyay. waxaan haddana imid dalkan Qaahira Masar oo magaalada Qaahira maanta aan ku suganahay. barnaamijkii wuu dhacay, lagana yaabo inuu barnaamijkii mid ku xiga aan sameyn doono hadday macquulta waqtigu ii saamaxo. safarka igu xiga wuxuu noqon doonaa insha Allah dalka Kenya magaalada Nairobi City Hall yiraahdo ay wax ka dhici doonto xaflad. waa habeenka 14 February 14 February maalinta jacaylka. dee magacayga waa dareemi kartaa Maxamuud Amoore, waa jacayl. habeenkan waa habeenka jacaylka. inaan dad badan oo isjecel halkaas habeenkaas ku qancin doonaan iyadana rajaynaya insha Allah. safarkaygu wuu sii soconayaa haddaan nolol ku gaaro. waxaan jecelahay inaan tago dalal ay ka mid yihiin Malaysia, istaga Imaaraadka Carabta, Abu Dhabi ama Dubai marba kii macquul ah. Yurubta meelo ka mid ah sida Norway ama Sweden ama Holland. marka kolley safarkaygu wuu sii socon doonaa insha Allah. waxaan ku rajeyn doonaa inuu maaragtay ku dhamaado guul, iyadoo weliba taageerayaashaada maaragtay aad si wanaagsan u qanci doontid aan rajeynano. markaan usoo laabto dhanka suugaanta oo aan kaaga horeysto si guud maadaama aad tahay fanaan da'yar soona koreya, Maxamuud Amoore wax ma noogu sheegi kartaa fanaaniinta aad jecleed inaad dhegeysatid, markii ha ahaadaano kuwa dumarka ama fanaaniinta ragga ah, yani fanaaniintay jecleed inaad dhegeystay heesooda xilliyadii hore? wallaahi markaa fanaan tahay heesaha dhan waa wada jecesha, laakiin fanaaniin aan aada u xiiseeyaa way jiraan oo ay ka mid yihiin Maxamed Salebaan Tubec, Xasan Aadan Samatar, Axmed Cali Cigaal, Maxamed Muuge, Cabdi Tahliil Warsame, Cumar Dhulle Cali. gabdhaha 2 gabdhood baan aad heesooda u jecelahay oo ay ka mid yihiin qof tirada Aamin Cabdullaahi iyo Khadar Daahir Cige. waa runtii fanaaniin aad u culus oo aniga waan dhageystaa heesooda oo waan jeclahay. maxaad jeceshahay halkan inaad u marisid
marat ama salaan ha aato ama hambalyo ha aato marka ugu horeysa anigu ku weydiin doonayaa si qaas ugu maraysaa marka ugu horeysa taageerayaashaada maxaa jeceshaa inaad u sheegtid wallaahi taageerayaasheeda aad baan u jecelahay qof kastoo i jecelna waan jecelahay ummadda soomaaliyeed oo dhan anoon kala saaraynin halkan waxaan u marinayaa salaan qaali ah ilaahayna waxaan ka baryayaa soomaali oo nabad ah dalkeeni oo nabad ah in aan tiyaatar soomaaliyeed oon leenahay annagoo aan isugu imaano oo annagoo faraxsan si nabada aan intaan uga heesno si nabad uga baxno in ilaahay dalkeena nagu nabad celiyo because waa dareemi kartaa habeenkii hore heestii waddankeedan qaadiyay waa dhammaystiri kari waaye ha sababtoo ah meeshaan ka imid iyo meesha aan taaganahay iyo meeshaan u heesayo wax aad u kala fog waaye marka waxa waaye ilaahay dalkeenii anagoo isjecelna aan ku noqon waxaan marka iminkan maraynaa gabagabadii waraysigeena ama barnaamijkeena waxaad ka warantaa habeen dhaweyte waxaa jirtay sanadkii cusub qaahira xafladii aad ka qabatay markii aad ka tumaysay waxaa kaa garab haysay fanaaniin fara badan oo kooxda ceesh unit ama qaahira kooxda ugu caansan waxaa jiray ninkii galab hore ah kaa dhinac haysay fanaanka ah ibrahim eto sidoo kale anfac oo idan ah gabar qaahira maaragtay laga yaqaano sidee bay kula muuqdeen maadaama aad ka khibrad dheer tahay fankana aad kaga horeysayeen والله فنانين تورت واسكود مدة وسميهين دتك لو اسكحي جنا نرجع ولا لا إن سو لو أنت أنك هلاي ويلش أصلا يرى أما قبلها مت أنا قياسي كلام أهن آد بان أقوم هذا علني يا ملك ستو أنتجو سيدو كلام وطن كستو أتكتد فنان بتشوجا فنانين تورت واسكحي كان السبوا كل فنانين تشوجي آد بيجوا لوين هل كان كوا أنا أقول إمت ما مو ذا أنت صفنان المجال تشوك تابين كم كان أركي آد ما أقول فرحي وأقوم هذا علني يعني كل هذا قلب هره إبراهيم إيتو نعيمة أسبرو كل جود محل قبل أنفع آد بن سلامية آد بن أمهات علنية وحنا الله ذلك أودان كسي وضع فنانين تها استعلاضان فنان كستو يمادنا سايسو دويسين سي كسي ونكسن أسو دويسن يا رجيني إن شاء الله أمور ما دام كهالشيء مع شغلي ضدك قاهرة قافك بنوليين ينورش جود قاهرة إيو ملكيها بقى إنها مجالها مركلة أتصون غادي مادام إجران فيستيفال بدن ونوصل فوله ما والله رجال إجشي هذا أد بقوين تاي مركه هردل يعني أنا درس نهاي أو أفريقيا أو حمودي كليا الصومالي يكون نوش هاي لكن ما كان سوق ذا قلي واحد بدنا أنا وجيم بقى رجال إجشي أد بقوين تاي إذن حتى إن دقو دل كان دقان كسميستو إن أنا كسون نقضه إن دقو نقضه الكيك لبعض إن شاء الله وأنا دل أدو جعلها ودل مسلمين ودل عربيات ودل سوماليدنا aad looga tixgeliyo inta aan arkay aad iyo aad ay u mahadsanyahay kaasina waa fanaanka caanka ah ee da'da yar maxamuud cali oo maxamuud amoore ku magac dheer oo inagu soo booqday magaalada tan qaahira si uu markaasi xaflad ugu qabto xafladaas oo kusoo gabagabooday ama ku dhacday sidii loogu talagalay iyo si ka wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad naga daawanaysaan waa ciwaanka website-ka www.xamarcadde.com safifilms.com iyo weliba website-ka jila.com annagoo weliba idin balqadeen inaan waraysiin noocan oo kale idinkaga soo qaadno fanaaniinta soomaaliyeed ee caanka xajalaba mudaysteen horta laysku magac dhabay iyo meedha dalkeedii mama dayla garo murtida haygu bayli mama dayla garo murtida haygu bayli mama dayla garo murtida haygu bayli